بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعن دقيستيال وبرامجكي هاوينكا وهذان وكالات كلا سعطان وتقون ميديا ومالنما جمعة تاريخ دنو يكو بيغان تاشاني طبان كبيشة ساقالات لبدا كون طباني تضبادا من مانتو كسو قادن دونا برامج كينا هاوينكا هورماركا اي كغارين وحبرشادا هاوينكا سوماليات سندي دنبي waxaa hubaale oo aan la xaqiri karin in dumarka ay kaalin muuqata ku yeeshaan horumarinta iyo wax u qabadka dalka iyo dadkuba waxaan dheer oo ay ka dhex muuqdaan bulshada dhexdeeda iyagoo ay ku leeyihiin kaalin muuqata sida ganacsiga iyo siyaasadda oo ay ka mid yihiin golaha sharci dejinta dalka golaha wasiirada tan maamul goboleedyada iyo tan degmooyinkaba waxaa intaasi dheer inay wax qabad muuqda ku yeeshaan dalka dibadiisa waxaana ka xusi karnaa gabadha matasha baarlamaanka dalka gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka Ilhaan Cumar iyo kuwa kale oo badan iyagoo intaasina ay u suura galisay heerka ay aqoontooda gaarsiisan tahay dumarka ayaa waayay hore wax talo iyo tusaalaba aan ku yeelan jirin aayaha dalka mar aan wax ka weydiinay dumar Soomaaliyeed ku dhaqan xaafadda Tanislii heerna ka gaaray dhanka waxbarashada iyo aqoonta kana dhex muuqda bulshada ay la nool yihiin ayaa waxa ay ku jawaabeen sida tan ku bilaabay magacayga waxa la Hani Maxamuud Maxamed waxa aan ku noolaa xaafadda Islii waxbarasho dumarka wax bartay haatan horumarka ay gaareen oo la taaban karo maxuu yahay waan ku dhawahay abaayo horumarka ay gaareen dumarka waxbarashada ay ka gaareen sanadadan ugu dambeeya waa waxbarasho la taaban karo sida aniga oo kaleeto waxaan wax ku bartay dalka Kenya waxaan ka qalin jibiyay Kenya University ayaan ka qalin jibiyay alxamdulillah rabbil caalamiin waxbarashadii ka bacdi waxa aan bilaabay businesskayga oo ii suurta galiyay inaan u dhoofo dalka dibadiisa sida oo ka kaansado alaabo kala duwan sida China Turkey baratay bisiibo ilaahay ku siiyay xaga ganacsiga ka bilowday ama inac kale dhaxal iyo waxaas ku bilowday ma dhig karnaa mise waa waxbarashada ka gaartay heerka waxbarashada waxaan dhigi karaa heerka waxbarashada aan ka gaaray waxbarasho la'aan waa iftiin la'aan fahanti waxbarashada aan bartay ayaa ii suurta galisay in aan business furto ma ahan hadda businesskayga aad buu balaaran ma waxaan ku keenay dhaxal waxay cid ugu garab qabatay maaha waa wax aniga ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxay aan bartay oo ka xusi kartaa miyaa jira maanta gabdho badan ayaa wax bartay gabdho badan ayaa hada business la yaala oo sideedoo kaleeto gabdho badan oo hada dawladda ku jira way jiraan laamo dawladda ka tirsan waxba wajahooyinka haya sida hada Maryam Qaasin wasiirada Maryam Qaasin oo kale sida Ilhaan Cumar oo kaleeto oo ayadana hada Mareykanka xisbiga Mareykanka ka tirsan ee baarlamaanka waxa jira gabdho badan gabadhan kaleeto ayadana hada dawladda dalka Kenya ayadana wasiirada ka arrimaha dibadda marka way badan yihiin waxaasna waxa u suurta galisay waxbarashadii ay barteen garan waaye kuma shalaaya waxaan wax u bartay shalayti ma lahayn maxaan wax u baran waaye ayaa shalayti leh intaas ayaan ku soo koobaya aad ayaa u mahadsantahay dhageystayaal waxaa intaasi nooga eeg barnaamijkii haweenka oo idin soo diyaarisay idna socodsiinaysay anigoo Anish Maxamed tali karantiina tan xigto waxaan idinkaga tagayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh